kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta ku xiran sahan cable TV isleedahay waxaa jira sharcigaasoo sharciga ugu daada weyn taariikhda ayaa ka soo baxay Mesopotamian. maxaad ka ogtahay sharciga Hammurabi? qarniyadii hore waxaa jiray boqorkii Babylon ee Ciraaq kaasoo awood u yeeshay in uu ballaariyo xukunka abuuyaashiisa, wuxuuna xukumi jiray 42 sano dhamaadkii dawladiisii, wuxuuna soo saaray sharci loo yaqaano hadda sharciga Hammurabi. qaarkood waxay u haystaan in ay yihiin sharciyadii ugu horeeyay ee qoran ee taariikhda qornaa, iyadoo uu khilaaf ka jiro, balse dadka ka qayb qaata qorista iyo weliba tixraaca taariikhyaha ayaa midkoodna ku khilaafsaneen in uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu daada weyn, xitaa kuwa ugu dhammaystiran sharciyada qoran ee taariikhda Hammurabi. saldanadihii ugu waaweynaa ee Babylon qadiimiga ahaa. Hammurabi waa boqorkii lixaad ee boqortooyadii Babylon oo xukumi jiray bartamaha Mesopotamian ee Ciraaq muddo 3 qarni ah, laga bilaabo 1894 ilaa 1595 dhalashadii Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam ka hor. qoyska Hammurabi oo xukumi jiray in ka badan waxay ka soo jeedaan qabaa'ilka Amuryan. iyagu waa qabaa'il reer miyanimo ka soo jeeda galbeedka Suuriya tan iyo qarnigii 3 ka hor inta uusan bilaabin fiditaanka Mesopotamian iyo weliba sidoo kale Levenda. dadka degan magaalooyinka dalalkii hore ee Ciraaq iyo Levenda waxay u arkaan in ay iyaga khatar ku yihiin oo ay samaysteen derbi difaac si ay dalkooda u difaacaan. malaha asalka taariikhda ee qoyskaasi awgood magaciisu wuxuu ka turjumaa dhaqamo isku dhafan. Hamu oo Amuri waa qoys, halka Rabbi macnaheedu yahay weyn ama Akkadian. luuqadda Babylon waxa lagu yiraahdo Hammurabi wuxuu xukumi jiray 1792 ilaa 1750 sanadkii 30 ee xukunkiisa, wuxuuna bilaabay in uu ballaariyo boqortooyadiisa koonfurta dooxooyinka Tigris, Euphrates, wuxuuna afgambiyey boqortooyooyinkii Ashur, Larsa, Eshonian iyo Mari ilaa uu maanta Mesopotamian oo dhan ay ku hoos timid xukunkiisa xakamaynta, wuxuuna ku fiday xukunkiisii ilaa badda Mediterranean-ka ee Levenda. Hammurabi wuxuu isku darsaday horumarkiisii militariga, siyaasadeed iyo mashruucyadii waraabinta, dhismaha qalcad iyo weliba macbadyo uu u dabaaldegayo ilaa Babylon Marjas. Babylon oo uu soo saaray sharciga Hammurabi ayaa hadda lagu aasay biyo-mareenka weyn ee gobolka, halka waxaa kay ku ahaa muddo dheer hanti ku jirta iyo weliba kuwa burbureen, balse qolalka dhoobada ee laga helay goobihii kale ee qadiimiga ayaa muujinaya astaamaha dabeecadda boqorka iyo weliba farshaxankiisa awoodda leh. kadib markii Hammurabi uu ballaadhiyay dalkiisa si uu u tirtiro boqortooyooyinkii dariska la ahaa oo uu mid ka mid ula wareego, wuxuu soo saaray mid ka mid sharciyadii ugu caansanaa uguna qadiimisanaa ee taariikhda aadanaha ee loo yaqaan sharcigii Hammurabi. sharciga waxa uu ka kooban yahay 282 sharci oo ku saabsan dhammaan dhinacyada nolosha, siyaasadda, bulshada, militariga iyo xitaa dejinta heerarka isdhexgalka ganacsiga iyo weliba ganaaxyo si loo daboolo baahida looga baahan yahay cadaaladda. sharciga Hammurabi waxaa lagu qoray dhagxaan waaweyn oo dhagxaanta madow qaab far ka hor inta aysan mar dambe dhicin kuwii ku soo duulay. ugu dambeyntiina waxaa la helay ama la soo helay sanadku markuu ahaa 1901. muxuu yahay sharciga Hammurabi? dhagaxa madow ee ku qoran yahay sharciga Hammurabi waxaa lagu xardhay 40,000. waana dhagax adag, balse aad ayuu u adag yahay in la xardho. dusha sare ee dhagaxa ayaa ku yaal qoraal caan taasi oo 2 feet iyo badh Hammurabi oo taagan, kaasi oo lagu calaamadiyay usha iyo weliba xariga si uu u macno yahay waxyaabaha ay caabudaan Babylon Shamash. sharciga Hammurabi wuxuu ka kooban yahay ciqaab adag oo fara badan. mararka qaar wuxuu u baahan yahay in la jaro carabka, gacanta, isha ama dhegta ee dambiilaha, balse wuxuu bixinayaa tusaalooyinka ugu daada weyn eedaysanaha oo aan dembi lahayn ilaa la caddeeyo dembiga. dhammaan 282 tikreeto waxaa lagu qoray qaab haddii ay dhacdo ama noqonayso. tusaale, haddii nin dembi xado waa in uu dib u bixiyaa 30 jeer. wareegtooyinkuna waxay ka kooban yihiin sharciyo qoys, qandaraasyada xirfadeed iyo sharciga maamulka oo inta badan ku soo rogay heerar kala duwan
oo cadaalad ah saddexda qaybood ee bulshada Baabiloon. dib u helista Hammurabi ee Oblis sanadka markuu 1991 injineer Faransiis ah ee macdanta qoda ee Jacques Magracon ayaa u horseeday safar qadiimi ah ee Bershiya in ay ka qodaan caasimadda Elmis Sosis ee Shoshan iyadoo qiyaastii 400 kiiloomitir u jirto bartamaha boqortooyada Hammurabi. halkaas waxay ka heleen Oblis ama Hammurabi oo jaban oo saddex qaybood ah oo laga keenay Sosis oo ku dhex yaal boolida dagaalka ee Elmin ee King Stroke Nakon oo laga yaabo in uu yahay bartimihii qarnigii 12aad ee sanadka miilaadiga. 5 qarni kadib markii la soo saaray sharcigii Hammurabi, Obliska ayaa loo raray madxafka Louvre ee Paris ka hor inta la tarjumin sanad gudihii si loo ballaariyo loona faafiyo tusaalooyinka ugu da'da weyn ee sharciga qaanuunka qoran ee ka horeeyay balse si weyn ugu adkeeyay sharciyadaas oo lagu xasuusto Cimraaniga waliba oo la tastimaankii hore. maxkamadda sare ee Mareykanka waxay haysataa xuruufta qoraalka sharciga Hammurabi oo mawduucyo ka mid ah sharciga la tijiyay taariikhyahanada taasoo lagu xardhay derbiyada iyo waliba qolalka maxkamadda. inkastoo sharciyada kale ay qoranaayeen haddana Mesopotamian ee markii dambe la ogaaday inay ku jiraan Suresian, Libid, Ishtar iyo waliba sharciyadii ama waxa la yiraahdo Nomion oo ay ka horeeyeen sharciyadii Hammurabi 100 sano. sumcadda Hammurabi oo ah hogaamiye sharci dejiyay oo erayada taaladiisii ka shaqeeyay si looga hortago kuwa xoog leh in ay ku cabudiyaan kuwa itaalka daran. taasina ay u keentay si uu cadaaladda u keeno in uu sameeyo sharcigan Hammurabi iyo waliba si uu badbaadiyo isla markaana noloshooda ay u badbaado carmalka iyo waliba agoonta. faahfaahinta qaar ee cunaqabataynta sharciga Hammurabi waxaan qiyaasi karnaa mid ka mid ah sharciyadii ugu horeeyay ee bini'aadani damco. taasi waxay noqon doontaa mid aad u lafaqsan oo adag marka la barbar dhigo sharciga iyo waliba nidaamka dastuurka ee bini'aadamka hadda gaadhay. balse inta u dhaxaysa dhibaatadan waxaan ka heli doonaa muwaadiniin badan oo cadaalad-doon ah. sidoo kale waa in la caddeeyaa in sharciga Hammurabi ay muddo dheer gacanta ku hayeen sharciyada gobolka Rafindiyan. saynis yahanadu waxay heleen nuqullo ka mid ah sharcigaas oo uu qoranaa loox loo suureeyay sidii derbi oo kale qarnigii 5aad ee miilaadiga. in ka badan 1000 sano dhimashadiisii kadib waxaa laga yaabaa in ay tahay isha ugu weyn ee ka soo baxday buugaagta kale ee ay soo saareen qaar ka mid ah wadamada iyo waliba boqortooyooyinkii hore ee Ciraaq. sharciga Hammurabi waxaa jira 19 shay oo ciqaab dil toos ah lagu xukumi karo. dembiyada qaarkood waxaa lagu ciqaabaa gowracid. waxaa jira qodobo lagu ciqaabi karo biyo laqid iyo waliba sidoo kale dembi lagu ciqaabi karo dab. waxaa jira hal qodob oo kaliya oo lagu ciqaabayo goynta naasaha haweenka. waxaa jira ciqaab lagu jaro dhagta ama gacanta. guud ahaan sharciga Hammurabi waxaa loo qaadan karaa in uu qaato mabaadi'da ciqaabta qaabka laba. tusaale ahaan haddii takhtarku daaweeyo bukaan oo uu bukaanka dhinto, dilka dhakhtarka gacantiisa ayaa lagu markiiba la goyn doonaa. sharciga Hammurabi waxaa sidoo kale ka kooban yahay dhowr sharci oo quseeya dumarka iyo waliba meeqaamka ay bulshada ku dhex leeyihiin. balse waxaa la yaab leh in sharciga Hammurabi ninka xaaskiisu u adeegsan karo bixinta deymaha lagu leeyahay. tanina waxay u muuqataa in ay kula heshiin karto inta uusan guursan ka hor, balse haweeneydu waxay ka dalban kartaa ninkeeda guurka ka hor inuusan sidaas sameyn. naagta dayacda ninkeeda waxaa lagu ciqaabi karaa webiga in lagu tuuro. sharciga Hammurabi sidoo kale wuxuu leeyahay weji kale oo u heelan awoodda boqorkaas oo xukuma wax kasta oo ku jira dalka Ciraaq. Hammurabi wuxuu rumaysan yahay in Ilaah u soo diray in uu dejiyo sharciyadan iyo waliba sharciyada militariga ee ilaalin doona awoodda buuxda. in haddii askari amar ku bixiyo in uu dagaal u galo boqorka, ciqaabtiisu ay tahay dil toos ah. askari
askari kiristay nin si uu u dagaalamana dagaalka maadaama beddelkiisu ay tahay in si toos ah loo dilo iyo weliba taliye ciidankiisa u qaata in la soo kiraysto halka uu noqon lahaa askari dhab ah ee u shaqeeya boqorkiisa. taasina waxay keentaa in si toos ah loo daldalo. guud ahaan anaga inta barnaamijkeeni oo maanta kusoo qaadanay sharcigii ugu qadiimisanaa dunida, taasi oo qoray boqorkii ka talin jiray Baabiloon ee hadda loo yaqaan Ciraaq. inta ku kulmi doono barnaamijkiisa xiga waa aniga iyo bahda Sahan Cable TV oo idin leh amaan Allah.